maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa kadib muddo bilooyin uu safar ku maqnaa waxa uu dib ugu soo laabtay caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo maayirka si ballaaran ugu soo dhaweeyay xubno isugu jira xildhibaano mas'uuliyiinta dawladda hoose madax dhaqameed kala duwan aqoon-yahan waxgarad haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo watay gaadiid aad u tiro badan waxaana kadib maayirku markii uu soo gaaray goobta soo dhaweynta uu mid u salaamay mas'uuliyiintii iyo sidoo kale shacabkii halkaasi u taagnaa soo dhaweyntiisa ugu horreynna waxa halkaasi kelmado soo dhaweynaa ka yiri xogayaa dawladda hoose Siciid Cumar Caabi iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Ceerigaabo Saalax Ismaaciil Cabbaase iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmadaasi iyo waliba sidoo kale madax dhaqameed waxgarad iyo aqoon-yahan kale kuwaas oo maayirka si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo waxa maanta farxad noo ah inaanu ku soo dhaweynay magaaladii Ceerigaabo guddoomiyihii golaha deegaanka ahna duqa degmada mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo muddo badan ku maqnaa safar shaqo maanta waxaan leenahay ku soo dhawow guddoomiye magaaladaadii mandaqadaadii dadkaaga iyo dalkaaga ku soo dhawow waad aragtaa bulshadii reer Ceerigaabo ee aad duqa u ahayd sida ay ku soo dhaweynayaan waxaanu soo dhaweynaynaa maayirkii degmada Ceerigaabo mudane Ismaaciil waxaan leenahay mudane waxaad maanta nabadgelyo ilaahay kugu keenay degmadaadii odayga ka ahayd waxa halkan maanta soo ka taagay oo ilaa saaka salaadii ku taagnaa dadweynihii aad xukumi jirtay ee reer Ceerigaabo waxaanu leenahay soo dhawow mudane soo dhawow iyaga iyo annagu soo dhawow baan leenahay guddoomiye ku soo dhawow degmadaadii iyo dadkii aad u ahayd odayga ku soo dhawow adigoo nabadgelyo ku yimi adigoo nabadgelyo nagaga tagay adigoo nabadgelyo noogu soo noqday annagoo nabadgelyo ku soo dhawow degmadaadii iyo dadkii aad odayga u ahayd ku soo dhaweynaa sida horeba loo sheegay waxaan ku leenahay ku soo dhawow degmadaadii aad iyo aad baa degmada Ceerigaabo ay kugu xiistay muddadii aad maqnayd waxaan ku leenahay soo dhawow kugu soo dhaweynaynaa kal iyo laab baan kugu soo dhaweynaynaa waa naga muuqataa inaanu nahay dhalinyaro iyo carruur waalidkii ka maqnaa oo waayeelkii ka maqnaa inaanu nahay waad aragtaa adna oday dadkiisii iyo waalidkiisii iyo reerkiisii u yimi baa tahay waxaan ku leenahay waa lagu xiisay soo dhawow waxaad aragtaa guddoomiye waxaan ku leenahay ku soo dhawow Ceerigaabo may kala hadin yar iyo weyn waa yeel iyo waxgarad culimo iyo chief iyo cid kastaba waa dhan tahay reer degmada Ceerigaabo dadkii ku noolaa oo ku xiisay reer Ceerigaabo niyadii baa ka xumaatay markii hore mar allaale markuu soo noqday baa dadka oo dhan soo warakacay 100% halkay marayaan reer Ceerigaabo 9 beeloodna waa dhan yihiin halka waxaa ka muuqata odagu intuuna ka maqnaa baahidaynu u qabnay iyo tabista aynu tabnay inaynu maanta ifla ka hor tagno duruufaha ayna qabsaday iyo wacyiga aynu aragnay iyo baahidaynu u qabnay baa halka ayna keenay marka Ismaaciil waa ku soo dhaweynaynaa odaygii baad ahayd odaygii magaaladaada ahayd duqii baad ahayd mudane maayir waa ku soo dhaweynaynaa Ismaaciil Xaaji Nuur aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa nabadgelyada iyo wanaagga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu ka celiyana waa Ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala uga mahadnaqaynaa maayirku de waa maayirka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur wuxuu qabtayna de waxa weeye taariikhda qorayso waa la ogyahay dawladda sidiyaad barre waxaana qaban buu qabtay Ismaaciil Xaaji Nuur aad iyo aad baan maayir ku soo dhaweynaynaa waxaan halka ku soo dhaweynaynaa maayir Ismaaciil Xaaji Nuur oo muddo laga maqnaa aabihii gobolka oo intii wax la gorman la isgaran goran la ishayn intii maqnaa gobolku uu indhabeelay oo intiiba la tabayay nabadgelyo hadii Ilaahay noogu ka keenay alxamdulillah ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii soo dhawow Ismaaciil gobolkaagii Ismaaciil Xaaji Nuur guddoomiye Obama soo dhawow aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa soo dhaweyn heer sare ah maqaam sare siday odhan jireen qolada Hargeysa roogaas haddii eebaydankeeda waa u xiisnay intii aad maayar naga maqnaydeen adiga bala saabko wax aan dhici jirin markaad joogteen baa dhacay waxaanaan odhan jirinna waa nidhi hawl badan oo aan qaban jirteen annaga ahaynay waa nasanayaa maanta haddaad timaado Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax duqii caasimadda Ceerigaabo waxaan leeyahay mudane soo dhawow waad naga maqneed waanu ku tabnay in badanna waa ku suganay waanu ku horgalanay intii uu naga maqnaa waxaan u basaasnay hawlo badan baa naga habsaamay wadada waa naga kala luntay waa maayirka magaalada maantuu yimi magaalada gaadhi qura joogay xashiishku waa tuuraa
maanta waa caasimad waxaan ummadda qaban buu qabtay waa soo dhaweynaynaa waa taageersannahay waa raacsannahay ilaahay hadduu noo soo nabad celiyo ismaaciil xaaji nuur faarax annagoo kaliya laab iyo qiiro wanaagsan ku soo dhaweynayna waxaan leeyahay ismaaciil boqor bilaadkoo dhan baa laga barisaa nin ragaa burmada loo ridaa ma banaantiikh burga looma soo shiro bakhayl baasha laga dhaaf beesha xigaalkeenna iyo awow beesha gurigeenna bandhigii hargeysa iyo lamood baararkii xamare wasalaamu calaykum maanta mar haddaad timi waa mahad ilaah caafimaad iyo baanu ku rajaynaynaa barwaaqo iyo bashbash waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhawow magaaladaadii oo in badan ka maqnayd oo ku tabtay waxaan ku leenahay soo dhaweynaynaa maayirkii soo dhawow maayir waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan shacabkii reer Sanaag oo dhan qaadi waa lagu xiisay waa lagu sugayaa waxqabadkooda sida nooc walba waa wada maayir soo dhawow gobolkan mid ka dhig maanta waa la aragtaa ku soo dhaweynaynaa dalkaadi oo nabada oo nimca ku soo dhawow adigoo safar shaqo ugu maqnaa waxaan kugu mahad maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay soo dhaweyntan ay u sameeyeen shacabka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta magaalada Ceerigaabo waxaana uu ka warbixiyay ujeedada safarkii muddooyinkii u dambeeyay uu ku maqnaa dadka halka jooga reer Sanaag qof aan eelahayn ma jiro reer Sanaag oo dhammi waa hal qoys waa isku mid waxay ku wada fadhiyaan darmo ilaahiga igu soo celiyay dadkaygii iyo dalkaygii ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxaan idin u mahadnaqayaa dadka ehelka ee reer Ceerigaabo ee iskallifay ee ilaa waqti hore halkan joogay ee igu soo dhaweeyay qalbi furan oo diiran aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa runtii anigu ma soo sheegin inaan soo baxayo waxaan idin diidanaa hawsha iyo inta halka taagnaanaysaan iyo waqtigii salaada iyo waqtigii qadada raaliga ahaada hay karaahaysanin anigana waxaan leeyahay idin ducaynayaa aad iyo aad runtii cidaan soo sheegay ma jiro inaan imanayo xitaa qolada maamulka waxaan ku soo baxayaa qura laakiin waqti ma sheegin sidaa darteed aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waynu iswarsan doonaa wixii arrina oo dib baynu isu warsan doonaa waxaan kaloo idin sheegayaa waxaan anigu ku maqnaa muddaan ka maqnaa ilaahayga degmadayda igu soo celiyo nabad qabtana waan ku mahadnaqayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sii waarto oo wanaag waxaan hayn aanu ka iman hawlo badan oo degmadu leedahayna waan ku maqnaa wax ii dhammaaday iyo wax aan ii dhammaan labadaba geesta kale maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay mid